Khalid bin Walid wuxuu ahaa geesigii Islaamka waxa uuna ka qayb galay uu hogaamiye u ahaa in ka badan 120 dagaal wiligiisna kuma guul dareysanin dagaal uu qaaday waxaana la sheegaa inuu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna neesay safety alla oo galka ka baxsan cajiib intaan u sii gudagalin qisada fadlan janaalka subscribe garee gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan mar walba aan soo gelino muuqaal barteen YouTube mahadsanid ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid mahadsanid Khalid bin Walid waxa uu ka dhashay qabiilkii reer Bani Makhzum oo ka mid ahaa qabiilada ugu waaweyn jasiiradii Carabeed reer Bani Makhzum waxay ahaayeen qabiil sharaf ku leh Quraysh dhaxdeeda Khalid bin Walid waxa uu ahaa yaraantiisa wiil aad u firfircoon waxa uuna bartay fardafuulka asagoo aad u da'yar waxa uuna la soo baxay geesinimo waxaana goor hore laga bartay fagaaraha lagu dagaalamo kaalinta koowaad ayuuna ka galay farsiyahanadii xilligaas jiray intuusan soo islaamin Khalid aad ayuu u nacbaa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo diinta islaamka waxa uuna jeclaa inuu baabi'iyo dhammaan muslimiinta aad ayuuna uga qayb qaatay dagaaladii u dhaxeeyay muslimiinta iyo gaalada marka laga reebo dagaalkii Badar oo uu ka maqnaa magaalada dagaalkii Uhud jabkii muslimiinta soo gaaray waxa sabab u ahaa Khalid bin Walid oo ka mid ahaa mushrikiintii Quraysh wuxuuna ka faa'iideystay khilaafkii ku yimid asxaabta waxaana lagu dilay dagaalkaas 70 saxaabi oo ka mid ahaa Asadullah Hamza oo ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkiisa iyo geesiyaal kale nabigana dhaawac ayaa ka soo gaaray maalintaas sidoo kale Khalid waxa uu ka mid ahaa nimankii soo weeraray magaalada Madiina dagaalkii Qandaq balse way ku adkaatay inay galaan magaalada Madiina dib ayayna u laabteen iyagoo niyad jabsan dagaalkii Hudaybiya Khalid bin Walid ayaa hogaamiye u ahaa waxayna Quraysh diyaariyeen ciidan aad u badan oo ka hortaga nabiga iyo asxaabtiisa oo xilligaas cimro u socday hase ahaatee waxay wada galeen heshiis nabiga iyo Quraysh sidaas ayaana lagu gabagabeeyay dagaalka balse Khalid ayaa aad ugu xumaaday arintaas wuuna ka tagay Makka nacab uu u qaaday muslimiinta awgiis hase yeeshee Allah ayaa hanuun la doonay Khalid wuuna soo islaamay sanadkii 8aad ee hijriga muslimiinta ayaa aad uga farxay islaamidiisa waxa uuna Khalid ka mid ahaa geesiyaasha islaamka 2 bilood kadib islaamidiisa waxa uu ka qayb galay dagaalkii Mu'ta hase ahaatee bilowga dagaalka waxa la dilay 3 hogaamiye ee loo magacaabay dagaalka waxayna asxaabta dib u doorteen Khalid bin Walid inuu noqdo hogaamiye kadib nabiga oo jooga magaalada Madiina oo la socday dagaalka ayaa yiri waxa hoggaanka qaaday seef ka mid ah seefihii Alle waana maalintii lagu magac daray seeftii Alle oo galka ka baxsaneed isla markiiba waxa uu gudagalay xeeladiisa dagaal ciidankii ayuuna kala bedelay waxa uuna ahaa Khalid dagaalyahankii ugu horeeyay ee Makka ku galay amarkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam Khalid bin Walid waxa uu ka qayb galay dagaalo badan oo loogu soo horjeeday mushrikiinta inta uu nabiga noolaa markii uu nabiga sallallahu alayhi wasallam dhintay kadibna waxa uu ka mid ahaa raggii la dagaalay murtidiintii diinta ka baxday geeridii rasuulka sallallahu alayhi wasallam kadib waxa uuna dilay hogaano badan oo muslimiinta ka soo horjeeday waxaana ka mid ahaa ninkii nabinimada sheegtay Musaylimatul Kaddaab geesigan oo loogu magac daray Sayfullah ayaa sabab u ahaa inay muslimiinta gacanta ku dhigaan dhulal kala duwan sida Sham, Iraq, Faris iyo Rome sanadkii 21aad ee hijriyada ayaa geeridu ku soo xaadirtay Khalid bin Walid aad ayuuna ugu murugooday inuu jiifkiisa ku geeriyoodo asigoo ka qayb galay in ka badan 120 dagaal waxa uuna jeclaa inuu ku dhinto goob dagaal oo uu ku shahiido waxa ka mid ah hadaladiisa anigoo ka qayb galay dagaalo badan jirkaygana meel walba dhaawac yahay miyaan ku dhimanaa sariirtayda sida oorkii oo kale waxay culimada qaar ku tilmaamaan sababta uu Khalid bin Walid ugu dhintay jiifkiisa inay ahayd naaneesta sharafta leh ee uu lahaa seeftii Alle ee galka ka baxsaneed mana ahan macquul in seefta Alle ay ku jabto goob dagaal Khalid bin Walid qisadiisa aad ayay u cajiibsan tahay Allah ka raali noqdo